jaaliyadda galmudug ee waddanka Kenya ayaa maanta xaflad soo dhaweyn ah ugu sameysay magaalada Nairobi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Kenya Jibriil Ibraahim Cabdulle, xildhibaanka degmada Kamakunji Yuusuf Ubax Taaliil Warsame, xubno ka kala socday ganacsatada xaafadda Islii iyo labada gole ee maamulka galmudug, nabadoono, haween iyo dhalinyaro. aslaanta calanka Soomaaliya ayaa lagu furay hanimo sharafeedka. mas'uuliyiinta ka hadlay waxaa Ubax Taaliil Warsame oo sheegtay in dowlad goboleedka galmudug uu ku tallaabsaday horumar. sidoo kale safiirka Soomaaliya oo fadhiya Kenya Jibriil ayaa isaguna ka mid ahaa dadka halkaasi khudbadaha ka soo jeediyey, waxaana markaasi uu ku dheeraaday maamulka galmudug iyo sida markaasi dowladda Soomaaliya ay markaasi ay diyaarka u tahay inay la shaqeyso. Kripto xildhibaanka degmada Kamakunji ayaa munaasabadda ka hadlay, sheegayna inuu ku faraxsan yahay inuu soo dhaweeyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Kripto odayaal nabadoon ah ayaa iyana ka mid ahaa khudbadaha halkaasi laga soo jeediyey. Kripto ugu dambeyn waxaa lagu soo dhaweeyey stageka madaxweynihii loo sameeyey soo dhaweynta mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor soo jeediyey hadalkiisa oo dhinacyo badan taabanayay ayaa waxa uu ahaa sida tan. Clip 5 muuqaaladaasi aad soo daawateen daawadayaal waxay ahaayeen soo dhaweyntii jaaliyadda galmudug ee Kenya u sameysay madaxweyne Axmed Qoorqoor oo isagu ah madaxweynaha countiga galmudug. marka isaga ambassadorkayga marka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynhayaa nasiibkiisa wanaagsan Qoorqoor oo ah dekadii lalahaa weligeed yaalaheed waa la dhisahayaa oo ay tahay hobyo meeshii ilaa iyo 60kii gobolnimada markii la qaatay ilaa hadda degmo ahayd oo aan ilaa hadeertaan wax horumar ayna ka jirin inay maanta horumarkeedii uu la kulmay. horta nasiibkaas waa ugu hambalyeynhayaa, waa nasiib ilaahay siiyey. waxaan kaloo ugu hambalyeynhayaa shidaalkii aan weligeed Soomaaliya shidaal laga qodin oo anaga oo aan dhalan la dhihi jiray shidaal baa la qodayaa Soomaaliya shidaal baa ka buuxa, iyadana in la yiri hadda galmudug baa laga qodayaa. horta nasiibka waa ugu hambalyeynhayaa. qabadkiisa waa la sheegay, qabadkiisa in badan waa la sheegay, halka waxba kaga noqon maayo. yahanka dad meelo kale ka yimid oo dowladda ka yimid haday nala joogaan iyo maamulo kale iyo baahda saxaafadda qabanqaabayaashii gogoshaan dhigay iyo gabdhaha sharafka badan leh dhalinyarada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa weeye intanadan waxaa guul u ah madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo madaxweynihii isku duway galmudug inuu maanta marti noo yahay oo nala joogo ambassadorkii iyo wasiiradiisii iyo dhammaan ay nala joogaan. waxa aan rabaa aniga inaan ka hadlo arrimihii kale waa laga hadlay. waa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo galmudug meel fiican gaarsiiyey oo wax ayadana magac asagana u ah ummadda Soomaaliyeedna nolol u ah inuu qabtay. madaxweynaha waxaan rabnaa inaan isgarab taagno, soo dhaweyno, qaadano, inaanan ka xumaan kuwa yaryarka ah oo la yiraa ciyaalsiyaha. markay ciyaalsiyuhu qofka jeclaadaan waxay dhahaan waan ku wataa. marka waa inaan madaxweynaha aan jeclaanay oo wax badan qabtay oo halkaan lagu soo koobi karin oo taariikh wanaagsan galay oo runtii nin nabadoon iyo aqoon-yahan iyo siyaasad iyo xataa maaragtay wax kasta isku noqday inaan qaadano oo kor u qaadno. warsow ma ogolidin inaan madaxweynaha qaadano dib u soo celino. gacanta ii taaga oo daalan asna wuu dadaalay, qabiilaadkuna way u duceeyeen, culimo udiinkuna way u duceeyeen. ducadiiuna ku guulaystay, wax badan uuna qabtay, wax badan uuna u dhimriyey, wax badan uu isku xidhay. maamul goboleedyada dhan uu ku shiriyey meesha ugu horeyday oo maamul goboleedyada lagu shiriyey isagoo 6 bilood gaarin bay ahayd. wax weyn buu qabtay. runtii waa meesha keliya maamul goboleedyadu ku shireen oo haddana ku soo noqdeen oo haddana madaxweyne farmaajo la keenay oo intaas oo wax isugu jiidayay. caalamka ayaa xataa la yaabay 6 bilood
ayadoo galmudug jirta in uu meeshuu ku shiriyey maamul goboleedyadii oo wax walba qabtay oo isku soo jiiday oo runtii dulqaad badan uu sameeyey waxaa garabka ka fadhiya guddoomiyihii golaha doorashada galmudug maxamed daa'ir guuleed si fiicanay wax isula soo xuleen dadkii mucaaradkii iyo muxaafidkiiba way kala siiyeen aad iyo aad ay ugu qaybiyeen waxa ay qabteen wax qabtay maamulada kama jiraan galmudug dadka ka soo baxay waa mirmiir oo muxuu ahaayey xildhibaanada ah dadka kale waxa weeye dad isku dhex daadsan oo jambaqa intaasoo howla ay qabteen in loogu celiyo mudan yahay waana soo dhawaynaynaa boqolkii boqol haddaan nahay jaaliyadda nairobi ee galmudug iyo ummadda soomaaliyeed ee galmudug joogta dhammaan waxa weeye warma dhimana ilaahay halku guuleeyaan ku leenahay adigaana ku garab taagannahay saad u soo noqo leedaanna ka shaqay doonaa insha allahu naf iyo maal iyo ducaba waa kuku garab taagannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayguna waa cabdulaahi maxamed jimcaale wada soomaaliyeed ku soo dhowaada waana mahadsantihiin waa tahay adow madaxweyne axmedna waxaad yeeshaan bal ha isku duwo at least waxaan dhihi lahaa weliba anigu intuu dekada hubiyo oo xataa qabyaba ha ahaatee dhishaya hataa u kaadiya intuu ka gaarahayo haddii kale meelo kale loo jiidi doonaayo u shaqo tegi doonaa raalli aga ahaada waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaarkaa wuxuu yidhi war diintaa idinku yarweli diintu naguma yaree ficladaa nagu badan waxaa la yidhi nin reer gaalkacyooda yaa waxaa la yidhi isfiilitaa lagaa sheegayo 3 garaam oo isfiilitaad qabtaa see la yeelayaabi waa lagaa dawaynayaa doctorow hal mid ii reebu isfiilitadaasaa dadka isaga dhiciyo marka isfiilitadaasaa nagu badan diintu naguma yara diinka iyo axkaamta iyo qur-aanku noogu badan yahay laakiin iska dhicinta dad iska dhicintaasoo 1 garaama aan wadanaa marka waana nala dardaarantay kuma durin raalli ahow intaas ka bacdi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo meesha lagu soo dhaweeyay aad iyo aad waxqabadkiisa loo amaanay si fiican waxba u qabtay waxyaalaha uu qabtay waxaa ka mid ah intii aan joognay 5 bishii sanadkii shanaad buu gelayaa weli lama arag isbaarataal galmudug oo ciidan dhigtay oo ay u cabanayaan in mushaar la siiyo waa guul weey wariyaa arkay ma jirto lama arag kulli akoonkeedu nin walba ugu dhacaa waa wax galmudug ay u gaartay maliyo dad la qaban laakiin waa wax axmed cabdikaari iyo maamulkiisa ay u gaariyeen madaxweyne kaliya lama soo dhaweeyo lamana faaniyo madaxweyne kaliya wax ma qaban karo maamulkiisana waa ku daraynaa waxqabadka sharafka iyo magaca iyo haybadda leh oo dadkaani sidii loo sheegay meeshu meel dhib badan weeyaa la yidhi meel dhib badan maahana waa meel oon fakar badan oo hunguri badan oo damac badan waa intaasay marka ay dadka uga duwannahay waa damac badannahay axmed cabdikaariye weli lama caleema saari wuxuu yidhi la caleema saari maayo anoon wax muuqda qaban waxaan ku raacsanahay haddeer sanadka dambe marka la doorto bisha 2025 yaan caleema saaraynaa sidii ninkii hore sheegay waxaan ku caleema ayagu way isfaaniya assalaamu calaykum calaykum assalaam kayf ciyaalakum kayf xawaalakum kayf xagga fulan markaas kulli dayibiin markuu kala tagu leeyahay dad soo fiirsha allah ya qarbayta baalagu banuurak marka waa munaafiqnimo moogta marka waxay yidhahdeen carabtu bishafateyn miyaa warku mase waa bilqalbi qoorqoor doorashadiisa toosane shafateyn miyaa mase waa bilqalbi qalbigaan ka runaan ka sheegaynaa weeye anugu waxaan ka soo jeedaa waxa laga yaabaa in la yiraahdo odagaani xaguu ka soo jeedaa anugu waxaan ka soo jeedaa cadaado madaxweynaha ka soo jeedaa malihiya cadaadaan ka soo jeedaa cadaado waa cidda keliya oo tiraahda wax aan ku qabno lama arko wax aan ku qabno madaxweynaha lama arko haddii ilaahay kuu rooyay farmaajo nooga fiicnaa oo yaysan loo hirgeline barlamaankiina siiyey oo ciidamana siiyey oo meelo waaweyn siiyey oo jidka cadaada ka tago hobyo gala naga ballan qaaday asagu wuxuu naga ballan qaaday male annagu marka waxaan ku niri war barlamaan 70 kiiloomitir dhuusa mareebi cadaado bal laba dawladood kala fariisanayso galmudug warnimada iimaanka Allah idin geliyo waxaad leedahay qoor wax ka fiican haddii ilaahay ku rinta ka heshiyo inta arkan waa ka heshiyo ayaa xaan ka helay
hadda waa walaalkii dadka kale nooga tahay waa walaalkii alla doorta toosana insha allahu oo fil qalbiya oo aan ahay bishafatay bushraa korkooda aan ahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhigay wixii dardaaranahaa waa la qabaa waxaan kaliya oo leeyahay ciidamada habeen dhawadna madaxweynaha maraan gooni isku aragnay waa noo sheegay awalna waa noogu bishaareeyey 1700 oo ciidan ah oo aan hal maalina mushaar waayin laakiin annagoo meesha fadhinaa waxaan ku nidhi haddana waxaan rabnaa inaan duceeya markaasaan waxaan ku nidhi doorashadu hadday khayr kuu tahay markaasuu yidhi maya iyadoo khayr ay ku duceeya haoranin hadday khowri tahay marka hadda iyadoo khayr aan kugu duceynaynaa aad iyo aad umahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta aan ka tegey rag badan oo saaxiibadayda halka fadhiya oo soo fiirinaya guryaha haddaa iga dafa magacaa mideeye 3 habeen ka hor xaflada ahayd oo aan meel fadhinay baan nidhi dhalinyaro galmudug annagu aan wareedhahay galmudug waad ujeedaan fiyooraha ka baxayo maanta kudayashada ay leedahay haddaanu nahay geer galmudug dowladeena galmudug maamulgoboleed manina waa ka weynaayo waxaanu nahay 11 qabiil dowlad baanu qaran ah horta waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha qorqor madaxweyne soo dhawow dhalinyaro firfircoon gabdho iyo wiilal ah oo qalbi ahaan u nool ganacsato ahaan u nool waxbartay baa dalkan ku joogo maalin walba calan galmudug u taagan iyo sharaftiisa safiirkayga sharafta la soo dhawow dalka ku soo dhawow xildhibaankayga Yuusuf xildhibaan soo dhawow dhalalaha iyo mar walba ku taaganahay waa madaxayna dhabtaa waa dhiga kaliya dooranaa dhanna heer galmudug ama isli community ama isli noodana waa xildhibaanka aan ku faano Yuusuf soo dhaweynayna xildhibaankeena xaliimiyada ayaa u jeedaa gudoomiyaha doorashooyinka ubax waa u jeedaa walaalkay waa u jeedaa dilaaxay la dhashay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo jirba barashada horta waxaan leeyahay maanta galmudug way nasiib badan tahay waxaan islahaa xafladaas soo noqon doontaa laakiin waxaan gudoomiyay jaariyada Soomaaliyeed diini oo xusulka laabayo hor ordaayo oo abaabulkii iyo odayaasha dhaqanka ganacsatadii Islam business community dhammaan ummadiyo isku mid ah isku fikir ah oo si aan caadi ahayn maanta loo wada qayb qaatay xafladan sharafta leh qorqorina nasiib badan baa tahay maadaama gudoomiyaha jaariyada Soomaaliyeed diini uu ordayo odayaasha ganacsatada ordayaan imaamka ordayo business community ordayo alxamdulillah waxaan leeyahay galmudug kudayashay u badan tahay marka qorqor anagu ada Soomaaliyeed xataa inuu dhageysto wixii waa ku wataa ma anaga wada kuwa sabran baa imaan doona insha Allah galmudug waligeena ma tigino sabray waxaan maleeynaa qorqor dartiisa oo tago si uu soo laabto dartiisa markaas wuxuu war waa sheegi jirta laakiin caawa alla kaaba dulgoyn ninkan dhaara u dhimo wax kale u dhimo lama arko dhaara u dhiman sidaas oo madaxweyne ku yahay dhaara u dhiman hadda hotelkan gareer rajasi oo madaxweyne ku yahay marka horta saa sheegteen maanta madaxweynaha dhaara u dhiman salaamaya qalbiga iyo waxaan ka salaamaya farxad si farxadaysan ayaa idin salaamaya waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay ayadoo maanta laga sheekeynayo taariikhdii galmudug way nasiib badan tahay waayo 11 beelood oo beelba kab kale ay ka qiimo badan tahay ayaa ka mid ah beelaha marka taageerada ay leeyihiin waxaan muujisay maalin dhaweyd sporting ilaa FIFA in laga soo amaano oo laga taageero calankeeni uu istaago halkaasaan kunigeen ka taageersanayn marka maanta waxa weeyaan madaxweynaheena oo marti u ah reer Kenya waa soo dhaweynaynaa madaxweyne waxaan ku leeyahay soo dhawow madaxweynaha waxqabadkiisa waxaan kala soo bilaabay markuu dekada uu madaxda ka ahaa uu joogay marka madaxweynahayna wuxuu ku caan yahay qalbi furan iyo farxad uu dadka ka daalayay subaxii hadduu shaqo bilaabo ilaa iyo 3 am subaxa kale wuxuu u shaqeeyaa dadkiisa inuu qanciyo horta intaas qof leh waa yartahay oo madax ah marka waxaa kaloo u dheer ummadii kala tagsanay oo kala maqneed oo caawda lagu soo maanta lagu soo celinaya hadalkii ahaa wuu mideeyay alleele kelmadaas iyo magacaas waa istaahilaa waa mideeye maxaa yeelay anagoo 3 calan kala leh oo galmudug oo ah gaalkacyo cadaado oo xibin iyo xeeb ah sunna wal jameeca ninkii ilaahay nasiib u yeelay inuu mideeyo u dulqaato meel ilaa ka bilaabo maantana dhismaheedii iyo sharafta ay leedahay ay muuqato oo haddaad tagtaan oo aadna Washington u baahanaynin mar haddaad tagtaan dhuusamareeb maanta waxaa ka taal madaxtooyo qiimo badan oo qurux badan oo aan ku faano everywhere aan TikTok iyo Facebook saas loo dhigo
marka maanta waa meelaan ku faano waa haysanaa madaxweynaha ku faano waa haysanaa marka waxaa loo baahan yahay in la isku hiiliyo hiil maanta kale ayay u baahan tahay galmudug maxaa yeelay hadduu cayayaan kasta soo haweysto iyo qof aan waxba macno lahayn annaga ceeb nagu tahay reer galmudug ceeb ku tahay haddii qof walba uu yiraahdo waxaan ahay madaxweyne waxaan ahay musharax ceeb waxay ku tahay galmudug ninkii u qalmay way haysataa oo sharaf leh oo ku habboon maanta inaan garab istaagno isu sheegi mayno waayo annaga u baahan madaxweynaha nooma baahnay annaga u baahan waxaan ugu baahannahay horumarkeenni sharafteeni 25 wasaaradood aniga dhuusamareeb waa tagaa iyadoo oo ay joogaan nimanka abtiyaasha ahaa oo sunna wa jameeca aniga waa jecla waana taageersana abtiyaasha laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego iyadoo cidlo ah oo duura oo dhirtu ay ka baxayso oo dudunsan ayaa waxaa laga dhigay green carpet maanta ku soconaysaan markaad tagtaan dhuusamareeb meela ku faantaana haysataan meel aad haddii qofku waxa waaye madaxweynaheena waa istaantii galmudug ee magaca soomaali ee 12 beelood 12 beelood oo beel walba beel kale ay ka qiimo badan tahay waxaa la rabaa inaan garbaha isqabsano inaan cadowga iska dhicino waayo ninkii madaxweynaha kala dagaala waa nin adiga kula dagaalay marka dadka kale oo maamulada kale yeesan wax kale iga qaadanin maamulkeena waxaan rabnaa inaan garab istaagno waa inaan u hiilinaa waa inaan tabarruc geynaa ma aha ganacsatada Soomaaliyeed ee ugu badan ee waxay joogaan Kenya ganacsada waxaan ka codsanaynaa inay taageerto oo xag dhaqaale lagu taageero galmudug oo aan laga seexanin oo la soo eego markii 3 bilood la joogaba la soo eego waa meesha ku faani leedeen waa meesha retirement-ka aad ku gali leedeen haddii Ilaahay yiraahdo meel hawo aan laga lahayn iyo dhul aan laga lahayn waa galmudug reer galmudug Soomaali ugu badantiin hadda aniga israado waa ugu badantii everywhere aan joogno haddii calankeena saas loo taago everywhere oo qabsanaya marka alxamdulillah sharaftaas iyo karaamadaas waxaa keenay waa midnimada aan leenahay waa isku tanaasulka aan leenahay waa inaan anagu gacanta isqabsanaa marka madaxweyne waxaan ku leeyahay soo noqo marka labaad iyo mar saddexaad insha Allah ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaad ku guuleysatid wax walba oo wanaaga u jeceshahay dadka aad madaxda u tahay ee reer galmudug waa ku soo dhaweynaynaa waa kugu faraxsanahay waxaan rabnaa inagoo haddee qof walba tigidkiisa iska soo bixi waa inuu dhuusamareeb la iska wada arkaa markay waqtigeeda la gaaro haddii Ilaahay yiraahdo waana ku mahadsantihiin waxaan kaloo meeshaan rabaa inaan ka salaamo dhammaan madaxda Soomaaliyeed ee reer Kenya ee Soomaalida nagu matasho ugu horeyso ee wasiirka gaashaandhigga aadan waayo waa dad Soomaaliyeed iyo xildhibaankeena siday Soomaali u soo dhaweeyeen ee walaalo ugu yihiin oo aan ugu faraxsanahay inuu wadankeeni labaad yahay ayaan ugu mahadcelinayaa reer dhammaan dadka Soomaaliyeed oo halkaan mas'uuliyadda kana siday Soomaali halkaan u degan tahay wadan kale u degan tahay ganacsi ku leedahay way yartaa waa fara ku tiris marka insha Allah waxaan idinkaga baryayaa dhammaantiin khayr iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan ka tago aan salaabin gabdhaha qaaliga igu ah ee ilmaadeeraday oo sharafta leh ee dhammaantood garab taagan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa goob walba ay joogaan waxaa xiriirka leh waa gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer galmudug waxaa idin leeyahay salaan iyo sharaf baan hawada idin marinayaa dhammaan gabdhaha reer galmudug saa u dhantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله هذا ما حلواناتنا قال تنيلو ومهد علينا قنتي قنانات كأس لسو قارني دوارها ميكروفون كسو دوين دونا حلمان يوسف حسن كدب سفير كينا كدب المدحوينها يا مناسبة دي نسو حلو دونا عب إن شاء الله وحانا مركا ميكروفون كنا كورجي حلمان يوسف حسن عبد كاس oo xildhibaan ka Kamakunji isaguna si kelmadiisa soo dhaweynta halkan ugu yiraahdo soo dhaw adinkuna ila soo dhaweeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay farxad dheeraada inaan idinkala soo qayb galo xafladan aad ku soo dhaweynaysaan una garateen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo runtii waxaanan qof kastaba magaciisa iyo sharaftiisa aan ku aqoonsanahay kamid yahay safiirkeena Soomaaliyeed halkan jooga
jibriil ibraahim cabdile iyo madaxda faraha badan ee joogta. waxaa kaloo si khaasa u salaamaya dadka u dhashay galmudug reer isli oo had iyo jeer si buuxda oo walaaltinimo ii garab taagan, had iyo jeerna igala soo qayb gala tartanka siyaasadeed, qiimaynayana kursigan siyaasadeedan ku leenahay baarlamaanka dalka Kenya inay yihiin dad safka hore kaga jiro qayb libaaxda ka soo qaatay oo aan halkan ku arko abshir maxamed abshir aadan maxamuud xaashi baa ka mid ah, cabdulaahi salaad baan arkayo jooga halkan iyo niman badan oo kaleeto oon magacyadooda iminka soo sheegi karaynin. marka aad baad u mahadsantihiin. hooyigiina isli iyo galmudug way isku xiran yihiin, way isku xiran yihiin. ninkii ugu horreeyay guddoomiyaha ka noqda xafiiskayga markii aan anigu xildhibaanka noqdayna yar aabihii dhalashadiisii reer galmudug buu ahaa. marka saldhig baa tihiin oo waan idin mahadnaqaya. waxaa kaleetoon jeclahay inaan codkayga ku daro dadka taageersan madaxweynaha runtii waa nin aad iyo aad loogu bogay, hawl fiicanna haya, meel fiicanna ka soo baxay. mideynta dadka keliya maahe hataa maamulka guud ahaan iyo soomaalinimadana ku adag. marka anigu waxaan leeyahay Soomaaliya 5 sano ama 4 sano qof waxba kuma qaban karo, hataa karti kasta uu leeyahay. markaasi dadka taageersan in lagu soo celiyo ayaan anigu ka mid ahay oo ku talin lahaa, inkastoonan cod ku lahay. hadda safiirka cusub ee noo yimid waa nin aad u firfircoon, nin way aragnimo leh, nin aqoon leh weeyaan. runtiina muddadii yareed uu joogay wax weyn buu ka bedelay xiriirka labada dal. xildhibaan muuqda, safiir muuqda oo aftahana oo afdheer. xaafadda isliina uu joogaa, uu noogu yimid booqashu noogu yimid. madaxweynaha maalinood uuna soo booqdo, si fiican baan u soo dhaweynay. marka bismillaah, waxaan salaamayaa madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor, xildhibaan yuusuf xasan, madaxda ka socota galmudug ee isugu jira xildhibaanada iyo wasiirada. waxaan sidoo kale salaamayaa xildhibaanadii hore ee federaalka Soomaaliya ee walaashii ugu horeyso, odayaasha dhaqanka ee ayagana ku sugan goobtan. waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinayaa, aan salaamayaa, aan yiraahdo dadka dhalinyarada ah ee barnaamijkan qaybta ka ah, iyo ugu dambeyn dhalinyaradii isa soo xilqaantay barnaamijkan qayb ka ah. waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahadceliyo jaaliyadda Soomaaliyeed marti qaaday barnaamijkan ugu marti qaaday barnaamijkan quruxda badan soo qaabisay, way mahadsan yihiin. waxaan leeyahay madaxweyne kusoo dhawaaw sida xildhibaanka uu yiri, kusoo dhawaa magaalada Nairobi oo aniga hadda wakiil ugu ah dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan ku leenahay kusoo dhaw magaalada. safaaraddu waxay diyaar u tahay soo dhaweyntaada iyo taxagelintaada, waan ku soo dhaweynaynaa. ganacsiga oo laftigiisu heerkii ugu sarreeya marayo oo aad u soo kordhayo. sida ula socotaan diyaarado badan baa maalin kasta ka goosha, laakiin diyaaradii ugu dambeysay oo mataqaanaa loogu dhawaaqay, lagu laanjigareeyey maalin 2 week ka hor Kenya Airways. macnaheedu diyaarado badan ay jiraan, laakiin muhiimadda waxay tahay Kenya Airways, dowladda Kenya iskale. waxaan rabaa arrinta ugu dambeysa oo kusoo afjaraya waxay tahay fursadaha jiro. sida ula socotaan dowladda federaalka Soomaaliya 6 bilood ugu dambeysay guulo aad u taaban karo ayaa dhacay. waxaan ku biirnay East African Community, mataqaanaa suuqa dhaqaalaha oo aan dareemi doono 10 sano 20 sano soo socoto. waxaa laga yaabaa gabar hadda cadaada joogto inay maqaayad ka furto magaalada.
dhammaan dadka ka soo qayb galay munaasabadan qof walba darajadiisa magaciisa iyo barnaamijkiisa ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeeyo ambashadoorkeena safiirkeena soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambassador jibriil xildhibaanka kawaguji xildhibaan yuusuf xasan madaxda dhammaan labada gole ee dowladda galmudug ganacsatada siyaasiyiinta gabdhaha dhallinyarada culamaadiinka intii aan xusay inta aan xusinba qof walba wuxuu markaa ku salaaman yahay magaciisa iyo darajadiisa waxaan rabaa marka hore inaan mahad celiyo guddigii iyo khiyaartii soo qaban qaadisay munaasabadan iyo xafladan qiimaha badan oo aan runtii aada iyo aada uga mahad celinayno dhammaantiin mudanayaal iyo marweyn inta kasoo qayb gashay munaasabadan jaaliyadda reer galmudug ee dalka kenya iyo madaxda kale dadka kale ee soomaaliyada kasoo qayb galay intaba waxaan leeyahay qadarinta iyo qiimeynta iyo sharafta aad noo samayseen aada iyo aad baan kaga mahad celinaynaa allah idin sharfo waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda reer galmudug ee dalka kenya oon isleeyahay hadda inta joogtahay waa reer nairobi kolley jaaliyaddu meel kala duwan bay degan tahay waxaan kaga mahad celinayaa isku xirnaanta midnimada wadajirka sidoo kale waxaan runtii ku ammaanaynaa dadka reer galmudug dad firfircoon ah ganacsiga iyo meheradaha kaleba sidaad uga muuqataan magaca ugu leedihiin meel aad joogtaanba gaar ahaan jaaliyadda halkan joogta dalkan kenya oo runtii waddankan laftiisu yahay waddan wax badan looga duwan adduunka intiisa kale oo aan qayb ku leenahay oo qayb ka nahay oo lagu sharfan yahay dadkuna ay ku haystaan masaalix iyo dano anaa uga mahad celinayaa dowladda kenya iyo madaxda dadka soomaalida ku matasha dalkan oon le waa mahadsantihiin oo ugu horeeyo anugu aan si gaara runtii walba u jecelahay xildhibaan yuusuf xasan oon leeyahay xildhibaan waa mahadsanta waa kuu sii sheegi laha waxaan leeyahay yaanan xikmada ka gudbinen sanadka soo socda xildhibaan yuusuf xasan hadda sideed ka ballan qaadee hore u yeeli jirtay hala isugu tago hawshiisana hala qabta insha allah hala doorto aada iyo aada jaaliyadda reer galmudug markale waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marwey madaxa sharafta leh waxaan soo kale rabaa halka inaan ka xuso ambassador jibriil safiirkeena soomaaliya ee dalka kenya ambassador waa mahadsanta shaqal qabatay muddo kooban dadka soomaaliyeed iyo jaaliyadda reer galmudugna waxaan leeyahay ambassadorku ambassador soomaaliyeed laakiin waa reer galmudug hala garab istaago si gaarna loo shaqeeyo mudanayaal iyo marwey mar kale waxaan leeyahay intii la dhihi lahaa adinkaa tirahdeen annaga jesti meeshan waa soo dhaweyn iyo sharaf aada noo samayseen dadkeena qiimaha badan galmudug wax badan uga noqon maayo maraaxil ay soo martay meelo kala duwan bay soo martay maalinba meelay soo joogtay intii ka soo shaqaysay iyo meelihii ay soo martay iyo group ama nin hogaankii ka ahaa intii soo martay dhammaantood waa ammaanan yihiin waa sharfan yihiin waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay nin qofba intuu soo qabtay intuu soo qabtayna waa ku ammaanaynaa runtii hal maalin ama hal mar waxma wada qabsoomin maantay wax badan baa noo qabsoomay alxamdulilah sidii laakiin laga xusay taariikhda galmudug wax badan inaan ku noqdo uma baahna meeshay soo martay waa la yaqaan maanta meeshay joogtana waa la yaqaan waxaa la sheegay oo dhan dee lama soo koobi karo galmudug maanta waxay leedahay hay-ado maamul oo dhisan oo shaqeeya oo si buuxda servicekii looga baahnaa ugu sameeya bulshadooda iyo deegaanada ay mas-uul ka yihiin oo leh shuruucdii iyo sharciyadii ay ku shaqeyn lahaayeen oo leh xarumihii iyo deegaanada ay ku shaqeyn lahaayeen waxay leedahay wax badan oo runtii maanta aad ogtihiin meelaha inta badan laga xusaa haddaan hadda idiin dul maro maalintii aan xafiiska nimid waxaad wada ogtihiin galmudug cirif iyo cirif aan soo marnay waxaan soo aragnay waa safarkii aan 40 maalmood oo xiriir ku jirnay
tuulo galmudug ka mid ah oo aan ahayn inta ay joogto khawaarij oo aanaan tegin ma jirto si aan u ogaano mid walba baahida ay qabto midnimada iyo wadajirka ka sokow dadkii waxay rabaan meel walba baahi weyn baa ka jirtay in lagu tago runtii waxay ugu daraa waxaa ka mid ahaa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxaas ugu daranooda afraada hubka qaatay dagaalka ku jiraan waa reer galmudug si joogtaa ugu jiraan meelaha kale ciidamada ayaa inta badan dagaalka iyo hawshiisa gacanta ku haya iyadana insha allahu tacaala guul baa laga gaarayaa mararka qaarkood waxay leeyihiin wixii dagaalku waa dagaal cadow naxariis daran oo xun oo muddo meesha joogay wey waxaa dagaalka uga jira galmudug magaar ma ahane Soomaaliland saa oo sheegay xoreynteedii u taagan marka dagaalkaasna waa socdaa farxad noo ah inay tahay galmudug meeshii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku shaqeynayay 6 bilood uu fadhiyay oo uu doortay inuu halkaas ka hogaamiyo dagaalka ama uu fadhiyay inay u qalanto caasimadda galmudug meel ay dowladda federaalka Soomaaliya ku shaqeyso oo leemnata aad iyo aad runtii alxamdulilah rabbil caalamiin gidna ka kaatay joogtaa waxaan is leenahay halkaan khiyaar fara badan oo ka hadashay waxaa aad loo taabanayay doorashada insha Allah way noo qabsami doontaa waqtigii loogu talagalay ama lagu heshiiyey waqti waqti doorashooyinka hadda in la mideeyo inay waqti isku mar dhacaan iyo waxbaad madasha wadashiga qaranka ama NCC oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa heshiiskaas la gaaray way dhici doontaa insha Allah doorasho ay leedahay oo galmudug doorashadeedii ah oo ku sharfanta ku midaysan tahay wixii aan horay u sheegi jirnay oo ama nala ku xafaalay jiray oo ahayd waa qaylo badan tahay iyo waa kala dadka ugu qaylada badan oo ugu maarta horta anagu maanta waxaan nahay state-ka ugu xasilan Soomaaliya kuwa qaylo doonana annagoo wada jirnaa gacanta ka qabanayna si ugu hore oo dhib badan wadaba gacanta uga qabanay dilayda waxaan leenahay galmudug waa halkaas ay soo gaartay dib u noqon mayso insha Allah ta'ala reer galmudug gaar ahaan jaariyada Kenya waligii intixaad baa u haydeen hadeerna ka war haya dadka caawiya waa caawi jirteen dowladdiina iyo dadkiina iyo deegaankiina duruufaha ay qabaan garab istaaga wax badan noo qabsamay wax badan naga dhiman maanta waxaa socota si hore loo sheegay ilaahay fadligiis muddo dheer waxay ugu taami jiray dekadii dhaqaalaheedii bilowga ahaa waa la aruushay xiriiro fiican iyo hadda waxaan leenahay oo kale oo ahayn reer galmudug ahayn markii hore isku tashi ayaa ganacsatada iyo dadka reer galmudug isugu yimaadeen aad baan ugu ammaanaynaa waxaana leenahay dadka reer galmudug ganacsatada meel ay joogaanba xoolaha iyo waxa ay haystaan in ganacsigooda Allah u barakeeyo oo dad runtii wax gal ah ma jirto dad waqti kooban intaas oo lacag ah dhaqaalaha ku diyaari kara maanta waa ku diyaariyeen bilowga dekaduna waa dhaqaalaha dadka halka waxa fadhiya khiyaar ka soo shaqeysay oo gudiyadeeda ku jirta iyo dadka u taagan kaabayaasha dhaqaalaha waa socdaan waxaa ugu muhiimsan airportka caasimadda dhowr bilood hadda dhismaha ku socda waa soo dhammaan doona haddii la yiraahdo waqti dhow aan dheerayn isagoo airport maaragtay caalamiya ah ma jira lama soo koobi karo howlaha maanta meesha ka qabsoomay hadda walaalaha soo socda waxaa dhammaan doona xaruntii UN-ka ee caasimadda oo aan dhul weyn iyo meel ku habboon ka siinay ma dhaway dhammaan doontaa insha allahu tacaala adigu inta badan waagi hore ma joogi jirno waa la sheegay duruufihii galmudug ay qabtay waa looyahay maanta halkan kuma soo koobi karo galmudug teenaas halka ay maanta joogto dhammaanteen waxaan soo daarmaynaa inaan geesaha ka qabanno horumarna aan gaarsiino meesha ay u socoto aan gaarsiino mar walbana dadkeenu ay u fakaraan sida ugu habboon iyo sida ugu saxsan insha allahu tacaala annagu cidna dhihi mayno waxaan leenahay meeshaas maanta gebiye yaraa u dhiman horteeda ah yaa in la gaarsiiyaan u baahana oo cid ku habboon iyo hoggaan ku habboon inuu gaarsiiyo ilaahay idankii annagu dhib iyo hawl badan dowladda galmudug waa ka soo martay oo hadda jirta meel fiicanna waa soo gaarsiiyeen halkaas isu bogaadinaynaa waxaana leenahay galmudug quruxdaas ay qabto hore aan uga soconno hore aan usii wadno wixii markaas dib u dhac keeni karana dhammaanteen aan dhinac uga soo wajeesano mar kale waxaan rabaa inaan halka ka ammaano aan idhaahdo
ambassadorka iyo xildhibaan yuusuf waa mahadsantihiin gaar ahaan waxaan leeyahay xildhibaan yuusuf sida aad ugu adeegtay ama aad ugu dhaqaaqdo xuquuqda iyo xaaladaha ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed aad u tahay xildhibaanka guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku sugan dalka Kenya halka ka sii wad wadankuna xildhibaanka garab istaaga reer galmudug jaaliyada galmudug ee Nairobi mar kale waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh طبعا ضدك سلامي دونا وعرضنا كذبنا مدحونا قفل بيش سوقي معنا